waxaa maalintii koowaad soo gabagaboobay shirkii ay lahaayeen madaxda golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed oo ay ka qayb galayeen madaxweynayaasha dawladda goboleedyada Puntland, Galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kaas oo shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble madaxda waxa ay ka wada hadlayeen oo ay ku kala warqaadanayeen muddadii bilka ahayd ee kala maqnaayeen waxyaabihii qasoomay doorashada la xiriiray iyo horumarada la sameeyay iyo sidoo kale hadii ay jireen caqabado ku horgudbanaa in shirka ama laga gungaaro xilligii doorashada maanta dhinacyada oo dhan runtii si saraaxad leh ay uga doodeen shirku uu sii soconaya maalinta bari hadii ay baydmo waxaana wada hadlayay sidii loo dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka iyo waxa loo xilsaaray in guddiga doorashada ra'iisul wasaaruhu uu u qabtay inay ka soo shaqeeyaan dhinaca farsamada in ay soo dhiraan qorshayaashooda bari ayaana la dhageysanayaa guud ahaan waxa laga wada hadlayaa oo arrimo la xiriira shirkan iyo shirkii 27 May ma jirto wax qorshe ah oo laga leeyahay in haba yaraatee la bedelo qorshihii ama heshiiskii 17 September mararka wararka qaarkood ee dadku ay sheegayaan ama maaragtay la isla dhexmaray haba yaraatee wax ka jira ma jiraan